way so waxaan isku xiraynaa marka labadan switch aaday u sahlan tahay because motionkeena hadda diyaar inoo yahay laba switch markaan isku xirayno waxaan isticmaalaynaa fiilada crosska ah haddii aad aqoonayso isticmaal fiilada automatic ah so aniga hadda waxaan isticmaalayaa crosska waxaan iskaga xirayaa godka u dambeeya gigabyte ethernet 01 to gigabyte ethernet 01 shaqadeeda waxay tahay linkigan inaan ka dhigo trunk okay faa'iidada trunk maxay tahay in labadan switch ay sameyn karaan negotiation in labadan interface ay isweydaarsan karaan multiple VLANs one time okay inta aanu VLAN ka abuurayna VLAN waxaan rabnaa xaggan inuu nooga soo muuqdo anagoo isticmaalayno commands-ka VTB laakiin right now trunk see looga dhigaa mawduucani marka waxay tahay change port to error to 1Q error to 1Q maxaa laga wadaa trunk yaa laga wadaa see u sameynaynaa marka so simple global configuration ka tagaynaa kadib waxaan galaynaa interface gigabyte 01 oo portiga anaga hadda aan dooranay kaliya waxaan adeegsanaynaa switch port mode hadda waxaan naqaan anaga access right this time waxaan adeegsanaynaa trunk okay before trunking aan ka dhigin waxaan jeegaraynaa statuska interface kaas anoo adeegsanayna do show interface G0/1 switch port right now waxaan arkaynaa dynamic auto inuu yahay xaggan static access oo yahay already static access muxuu ku noqday because labada xabo communication ay sameeyeen okay labada xabo communication ay sameeyeen so kan kala hal mar galaya okay حاليا enable show interface G0/1 عفوا space switch port so dynamic auto هذه الرأسية لو interface هذه هالمر dynamic auto سنو نقدان نحن نقول دونا again static access نقولنا يعني of course rule أنت نويا لا DTB مركا إيمانه واي هذا وجاده لبدين interface switch كي كواد ماركر تنصور كان ماشي يعني switch كذا بورتيز كواد ضد dynamic auto نقطة switch كلنا dynamic auto نقطة state كذا محو نقولنا access يعني static access that is why لو هذا نعيويه static access okay so switch كي هدينا هذا أو كان أكو أنكو بلاونا switch 1 كا okay interface كيس أن كده switch port mode trunk remember وحكده trunk still ماشان وحي جوجي دونتا dynamic auto let me see just حالينا do show interface G0/1 okay أو switch port okay عفوا لبدا link trunk ايهين so link كلام حاكف لنا يعني هدي switch كي قد كميدا trunk او نقضه okay قد كلام dynamic auto وسارين هاي محو نقنايا linkiga trunk oo noqonaya that means aniga hadda right now muu baani this interface inaan ka dhigo trunk every single data ahaayo waa u forward gareyn karaa laakiin best practices waxay tahay both ends inaan ka dhigno trunk so hadda kan waa ka soo dhignay kanaan gelinaa before aanan gelin ogaada hadda inta waxay dynamic auto inta waxay static right now inta waxay noqonaysaa trunk inta waxay ahaanaysaa dynamic auto because system kada dynamic auto markii uu saaran yahay interface ka by default wuxuu diyaar u yahay inuu meel member ka noqdo maanta wuxuu leeyahay who is going to be my member or who is going oo maxay ahayd aniga yaa member ugu noqonaya okay so waxaan galaynaa marka waxaan leenahay show interface G01 meesha maxaa arkaynaa trunk inay noo tahay waayo trunk u tahay haddii linkigaada geeskan xagga yaala this interface haduu trunk noqdo adina by default dynamic auto aad tahay interface-kaada statekiisa wuxuu ahaan doonaa trunk and 1,000,000% waa huba imtixaankiinu ku imaanaya okay so to memorize this table waa inaad practice sameeydaa hal interface inaad dynamic auto ka dhigtaa mid kalena trunk ka dhigtaa right waa u imaanaynaa qodobkooda hadduu ilaahay so si linkigan kale marka trunk aan kaga dhigo waxa sameeynaa global configuration ka aada okay
waxaan ka leeyahay interface gigabyte 01 then waxaan leeyahay switch port mode trunk. Okay, simple. So waxaan jeegareynayaa again interface gigabyte 01 switch portigiis. حتى لو دعم waxaan arkayaa marka trunk maxaa laga wadaa? haddii interface-kaada oo trunk noqdo oo bidix ah interface-ka kale aad ku xirantana oo trunk noqdo linkigaada muxuu noqonayaa trunk uu noqonayaa. Simple. This game inaan naqaano waayo marka halkan side haddii switcheskayga ay soo buuxiyaan sideskan kale switchkan ay soo buuxiyaan ficilka dhexdaana soo galaya hadhowda ayadoo margin ay ku imaanaya. What's going to be happen markii switchka dynamic auto noqdo kan kalena oo noqdo access? Of course access aan noqonay. Simple as that, right? Way qodobkeen waa sameynay buugga haddii aan ku laabto. Okay, this one waa sameynay. labo waxaana laga rabaa systemkeena boortigiisa in aan originalkiisa u celino. sidee original ugu celinaynaa marka? both ends hadda waxaan arkaynaa trunk leeyihiin. Okay, si aad originalku ugu celiso waxaad geli doontaa interface-ka aad rabto trunk inaad kasoo furto. Okay, just waxaad dhihi doontaa no switch port mode trunk ama no switch port mode simple. Okay, ugu switchkan hadda markaan dhahay no switch port mode automatic wuxuu ii soo saaray wax loo yaqaan syslog. Why syslog-gan? Spanning tree protocol la yiraahdaa jiro oo aan session iska xiga qaadan doono. Okay, caawa hadduu ilaahay sessionka markaan ka baxo proposal ay idiin soo dhigi doonaa oo ah in laba habeen ama habeen dheeraada aan ku darsano si ay xiisadaheen xamaasad u yeeshaan insha Allah. So inta waxaa ku qoran spanning tree waxaa jira barnaamij la yiraahdo BBDU oo hadda imtixaanka lagu soo daray wuxuuna leeyahay gigabyte 01 oo switch kale kaaga imaanayo waxaa jira wax loo yaqaano inconsistent port type. imtixaanku way kuugu imaan doontaa and for that reason waxaana leeyahay portigan waa la disable gareeyay hadda wax spanning tree oo mawduuciisa aan galaya ma laha. Okay, si loo xaliyo laakiin ciladan waxaan tegaynaa switchka kala tegaynaa. Okay, asigana sidoo kale errorkiya u yaalo ama asliga miya switchkan kala galeena asla same shay waxaan ku sameynaynaa no switch port mode symbol. Okay, haddii aan jeegareeyo oo aan iraahdo show interface G01 switch port systemkeeda wuxuu kusoo noqda default. Okay, this is how aan systemkeena default ugu soo celinayo. Okay, wax kastoo inta hadda mawduucan soo qaada command-kiisana hadhowda ku horqori doona hadduu ilaadmee. way trunk waa ka baxnay even portigan waa jeegareyn we don't need to inaan dib ugu laaban. Port status see loo jeegareeya we already know. Okay, this mawduuc si uu u shaqeeyo mawduucan si uu u shaqeeyo oo mawduuc tuu ah oo aan u ogolaanayno VLAN aan u diideyno waxaan ka hormarinaynaa see VLAN loo abuuraa. Before aanan ka bixin su'aal haddaad iga weydiinaysaan command-ka hadda aan qoray I'm open to answer. So do I. All right, that means su'aal ma qabtaan. way mawduucan gadaalan ka dhiganaynaa. mawduucan waxay tahay switchkana VLAN ka abuurayna VLANadaas waxaa loo xawilayaa switchkan then VLANadaas mid kamid ah u diideyna inuu switchkan soo gaaro. si marka loo sameeyo waxaa waajib ah shirkaddan aan u sameynayno VLAN-ka inay isticmaasho barnaamij loo yaqaano VTB. Okay, VTB waxaan kasoo gaabinay VLAN trunking protocol. VTB waa Cisco proprietary Cisco sidee u shaqeysaa? qofka network administrator-ka ah wuxuu sameyn doonaa domain oo sameynaya. domain maxaan ka wadnaa? shirkadaas hadday hormuud tahay waxaan ka dhiganaa hormuud.com, hadday tika tahay deco.com, hadday engineer Cabdalla tahay engineercabdalla.com, cabduqaadir.com. domain-kaas marka maxaa la rabaa shirkadaada dhan inay same ka wada ahaadaan. Okay, maxay tahay? labadan switch domain-kooda waa inuu ahaadaa tika. Let me write
domain tika. Okay, this waa inuu ahaadaa domainkiisaasna tika. These two company waa hal company, haddana waa inay ahaadaan same domain. Hormuud oo kala magac ah ma aragteen, xarunta Bakaaro Hormuud ay ku qoran tahay, xarunta Baar waxna ay ku qoran tahay Telecom, cidna ma arag soo ma. haddana communication ay sameeyeen. That means domain was single maxay ahayd administrative domain, right? domain abuurayna. Then waxaan sameynaynaa wax loo yaqaano mode ka muxuu yahay? shirkad kastoo jirto hal xaruna waxay u tahay main center. Okay, let's say kan waa DC geena ama waa main center keena, waa xarunteena weyn. xaruntan weyn maxaan ka sameynaynaa marka? every single data asaan ka sameynaynaa, right? wax waliba asaan ka generate gareynaynaa. waxaan ka generate gareyno waxaan u gudbinaynaa switchka kale. Okay, that is switchkeena markaa server oo noqonaya. qofka helayo wuxuu noqonayaa client. client switchkaada client haddoo noqdo, let's say this client yaa ka dhigana. client haddoo noqdo number 1, switchkaada wax ma create gareyn karo. no creation of VLANs. Okay, laakiin maxaa samayn kartaa? advertise VLANs to your neighbor. Okay, markii client switchkaada uu yahay maxaa awoodnaa? client markuu yahay switchkan wuxuu kusoo advertise gareynaa, wuxuu leeyahay VLANahaya wuu kusoo dirayaa, right? VLANada waa hele, laakiin switchkaada VLAN cusub haddaa u baahan tahay ka abuurto ma ka abuuri kartid, waa inaa meesha mainka kasoo abuurto. sidoo kalena waxaa awoodaa qof kale hadduu kugu xiriya inaad VLAN kuu dirto. yaana fahmin qodobkan, right? transparent muxuu yahay marka? transparent muxuu yahay? for example, switchkan clientiga ah waxaa ku xiran another switch oo special purpose loo isticmaalo. let's say this switch waxaa u isticmaaleynaa special purpose u isticmaaleynaa, right? switchkan waxa ka abuuran ma rabno in loo gudbiyo switchkan iyo switchkan in loo gudbiyo ma rabno. Okay, laakiin waxaa rabnaa this switch kale haddii kusii xiran yihiin in oo xogta usii gudbiyo, laakiin daatada oo asi haayo ma rabno inuu gudbiyo. logicaas isla fahma. Okay, waxaan nidhi server hadduu yahay wax waliba waa ka abuuri karnaa. trunk hadduu yahay wax ma ka abuuri karno, wixii noola soo diro waa qaban karnaa, waa sii diri karnaa. transparent markuu yahay maxaa dhacaya? Okay, systemkaada transparent markuu yahay, for example uu ka abuuran yahay VLAN 50 iyo VLAN 60, haddii ka abuuran yihiin switchkaada VLAN 50 iyo 60 ma loo diri doono switcheska kale. laakiin haddii switch kale uu yaalo meeshaan, logic arag, switch kale hadduu yaalo oo switchkan ku xiran yahay, intana aad ka soo abuurtay, for example mainkaada aad ka soo abuurtay 10 iyo 20 iyo 30, 10 iyo 20 iyo 30 kanna waa loo soo dirayaa, kanna waa loo dirayaa. laakiin 10 iyo 20 30 database-ka switchkan ma soo galaayo. mudalint wuu sii forward gareynayaa, laakiin asiga member ma ka noqonayo. yaana fahmin hadalkaa. Okay, well, let's do the practice man. waxaan laga rabaa domain abuurayna teka ka dhigana, password abuurayna waajib waa, because open haddaa ka dhigto everybody oo systemkaada kusoo xirma waa helaya. waaye see u sameynaynaa marka? VTB-ga markii la joogo waxaan isticmaalnaa modes, server iyo client iyo transparent. Okay, systemkan haddii aan ka dhigno server, VLAN kasta asaan ka abuuraynaa. Okay, kan haddii aan ka dhigno client, VLAnkii la abuura asigu wuu imaan karaa, laakiin asiga VLAN ma abuuri karo. wuxuu awoodaa inuu sii advertise gareeyo oo la wadaaga dadka kale. switchkaada kale haddii aad ka dhigto transparent, it means switchkaas wax kastoo ka abuuran looma diri doono switcheska kale.
asagana sidoo kale ma reebanayo wixii la soo diraa okay wixii la soo diray ma reeban doono laakiin uu si advertise gareynaya that's marka let's do the practice switch kan hadda waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay server kan waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay client kan waxa uu aqoonsanaynaa transparent inuu yahay kan waxa uu aqoonsanaynaa inuu client yahay oo ku xiran yahay this area let me draw it drawing aan isticmaaleynaa si aan u kala separate gareyno okay and afar gees aan doorto wait afar gees intan waa isku shaqo okay dhammaantood communication ay sameynayaan this guy laakiin waa special purpose network uu ku xiran yahay maxaan sameeyey field color ma dhihin wait network uu ku xiran yahay laakiin participation ma ka qaadanaya yani wixii asi ka abuuran qof kale ma la wadaagaya waayo si u sameynayna arrinkaas marka switch kan serverka tagaynaa okay enable show VLAN brief maxaa sameysan VLAN 10 aa sameysan VLAN 99 aa sameysan let me create VLAN 20 name active LAN ka dhigno okay VLAN 30 name kiisa asna ka dhigno for example IT switch kayga waxa iga abuuran VLAN 10 VLAN 20 VLAN 99 haddii aan rabo switch kan ina intaas VLAN ka soo abuuro maxay noqonayaa ina inta maal hadana magacii iyo VLANadii aan abuuro switch kan ina ka dhex abuuray noqonaysa inta hadda aan soo sameeyay aniga ma rabo marka waxaan ka faa'iideysanayaa VTP waxaan kaloo ka faa'iideysanayaa linkigan trunkiga ah see sameynayna marka switch server kan galeena brief global configuration kan ugu joogno waxaan adeegsanaynaa command-ka VTP mode waxa ka dhiganaa server system kaadu wuxuu ku dhigi doonaa already server ah because every model as iska soo saarto server waa okay every model even kan client ga arabna ka dhigno server waa by default okay second waxa adeegsanaynaa VTP domain keena waxa ka dhiganaa ticka magacan inaan wada qaadano waa shirkadeena waa institution aan u casuumanahay dhamaanteen caawa aan u fadhino session kan oo madaxooda ku baxaya right ticka leena enter inta maxaa noo soo baxaya changing VTP domain to null from null to ticka magacana laga soo qaada ticka laga dhig so every switch oo aan systemkeena ku soo xirmay waa inuu magacan isticmaalaa second domain kan waxa uu sameynaynaa password waxa ka dhiganaa glass offer waaweyn ah okay qof waliba oo ticka rabta inay ku soo xiranto oo VLANada rabta inay hesho maxaa masti ah in ay password ka isticmaasho sama maxaa kaloo laga rabaa linkigan inaan ka dhigno trunk this link waxaan ka dhiganaa trunk gigabit 01 trunk ya ka dhiganaa okay let's check before waxa leena do show interface G01 switch port hadda waxa arkay dynamic auto static inuu yahay trunk hore u soo barano waxa leena interface G0/1 switch port mode trunk symbol oo save gareynayna switch kan already VTP aan ka soo abuurnay password oo soo sameeynay VTP ga si u check gareynayna marka si aan u check gareyno waxa tagaynaa brief flash kadib waxa qoraynaa show VTP status kadib waxa leeyahay enter status kayga domain kayga hadda waa ticka okay mode kayga waa server number of existing VLAN is 19 anaga 9 VLAN ma abuurnay 9 VLAN intee ka yimaado let me check show VLANs brief xagan waxaa noo abuuran 1 2 3 4 afar waxa u geysaa 1 2 3 4 5 that is why 9 VLAN ee noogu taal okay number of existing VLANs even VLAN haddaa tirtirto meeshan 10 ay noqonay haddii aan tirtiro for example no VLAN for example 99 okay haddii aan idhaahdo show VLANs brief عفوا show VTP status yep عفوا number of configuration كأد ماشي أنا زيادة يسرالي هذا so أنت مانجر نقولنا لكن number of configuration VLANs كأسمه هذا ماشي increment يومات أنا وحنايا مت صعدوا أهانايا okay
so hadday wuxuu ahay number of configuration keena 0 ahay maano VLAN aad tirtira 1 oo noqona haddii aan abuuro again VLAN cusub haddaa abuuro waa yiraahdo VLAN 100 namekiisa aan ka dhigo for example management haddii aan yiraahdo show VTB status meesha maxay noqotay 3 okay increment ya maanta la soconaya kan meesha nooga ekeysiye way switch xiga aadina global configuration kiisa tageena interface G01 waa kee waa godka okay number 1 waxa ka dhigaynaa trunk ya ka dhigaynaa waxa leenahay switch board mode trunk okay kadib waxa leenahay exit second waxa leenahay VTB mode client okay client da kodnigu aan isku day inaan VLAN abuuro VLAN 10 waxa leeyahay VTB configuration not allowed when the device is in client mode okay waxa la soo diri karaa hadda fiir hadii aan do show VLAN brief hadado wax VLAN ah meeshan ma igu jiro ogaada linkiga trunk ya ka soo dhigay modekayga waxaan ka dhigay maxaa ka dhigay client so hadii aan isku dayo inaan jeegreeyo VTB status automatic domain ku ii soo galay domain ani ma abuurin waa ii soo galay because waxaan soo sheegay as long as linkigan oo trunk yahay wax waliba switchkan ka abuuran wuu soo baxaya switchku wuu imaanaya except the VLANs okay domainski automatic waa soo advertise garay clientiga loo keenay right clientiga hadda wuxuu u baahan yahay just password kale inuu sheego oo yiraahdo glass right hadda haddii aan jeegreeyo VLAN-keyga maxaa ii soo galay 10 20 100 magic fiiriya way soo galeen hadda sooma again switchka serverkan galaya VLAN cusub soo abuuraya xalaya VLAN 1000 okay waxa uu bixinaya namekiisa class tika okay automatic inta soo kama abuurin switchkan haddii aan aado oo aan mar labaad jeegreeyo VLANska waxaan soo galay every single thing oo aan ka soo sameynay switchkaas automatic waa la soo advertise gareynaa okay hadda client iyo server waa fahanteen soo ma intaan ka gudbin oo aan transparency galin thank you so labadan switch kan clientiga ay kan linkigooda waxaan ka dhigaynaa trunk ya ka dhigaynaa okay so switchkan clientiga galaya F01 aan galaya waxa la interface F01 switch board mode trunk shaqada kuwaad kaas waa okay wax kale switchka ma ka sameynayay wax kale lagama sameynayo because waa client switchkan kala imaanayna okay xalana enable config terminal hostname kiisu waxa ka dhiganaa transparent okay waxa jeegreynaya VLAN inay ku jiraan wax VLAN aan ku jiro asiga waxaan ka abuureynaa VLAN 50 namekiisu waxa u bixinaynaa assignment waxa ka abuureynaa VLAN 6 namekiisu waxa u bixinaynaa test ogaada laba VLAN oo dheeraadan ka abuuray 50 iyo 60 meel kale ka abuurayaa mala waxaan rabaa switchkan in VLAN 50 iyo 60 aan la gaarsiinin switchkan kana aan loo dirin okay laakiin waxaan rabaa in VLAN-ka inta ka abuuran 10 20 30 switchkan loo soo diro this switch in loo soo diro oo client-ga ah okay maxaa sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa switchkan aan galaynaa already interface-kiisa F01 waxaa ka dhigaynaa trunk ya ka dhigaynaa waajib waa okay link kasta oo switch ku xirmay waxaa ka dhigaynaa trunk right waxaan jeegreynaa VTB domain-ka ma loo soo diray yes transparent hadduu yahay domain-ka waa loo soo advertise gareynaa waxaa leenahay do show VTB status right here I don't see VTB domain laakiin door jeer haddaa refresh iraado waa isoo baxaya laakiin waxaa leeyahay inta waxaa ujeedaa inuu server yahay waa bedelaynaa okay waxaa leenahay VTB mode transparent waxaa leenahay transparent ka dhig right server laga soo bagay transparent laga dhig hadda haddii aan jeegreeyo ay iraado do show VTB status mode-keegu waa transparent right waa transparent way
VTB domain ka isticmaalayna waa tika waa u sheegaya manually because participation ka qayb qaadanaya nidisoma haddana waxaa leenahay VTB password ka isticmaalayna waa glass labada waa u sheegayna hadday maxaa xasuustaa switchkan labaas markaa u sheegay every VLAN in loo soo diro maahano switchkana galayna waxaa leenahay do show VLAN brief wax VLAN oo loo soo diro malan VLAN 50 60 oo haya again switchka client inta yala haddii aan tagno oo aan asna ku qorno do show VLAN brief wax 50 60 loo soo gudbiyay malaha right way VLANada inta ka abuuran maxaa rabnaa hadda in loo soo diro switchkan in loo soo diro maxaa sameeynaa switch transparency ga galena F2 waxa ka dhiganaa trunk okay halena interface F02 switch port mode trunk okay then let me refresh this switch kana galaya asna F01 waxa ka dhiganaa trunk enable config terminal hostname kiisu waxa u bixinaynaa client okay interface F01 waxa la switch port mode trunk trunk ma ka dhigno hadda haddii aan dhaho do show VTB status domainka waa liisoo gudbiyey man is so amazing like waxaan dareemayaa aniga hadda excitement inaba caadi ahayn I wish inay la dareemaysaa see haddaay switchkan oo transparency-ga ah markii aan trunk ka dhignay waxay noqotay tika inaan gacanta ugu sheegno annaga because meesha ma soo gelin laakiin this guy markii aan ka dhignay maxay ahayd interface ka trunk markaa ka dhignay automatic tika liisoo gudbiyey the magic thing ka idin tusaya marka wax VLAN hadda ma iyaalo eg VLAN brief wax VLAN ma iyaalo number 1 waxa leeyahay VTB password glass because already maxaa haysta domain ka haysta I don't need to create domain again enter layer oh man the magic thing is going to happen right now diagram show VLAN is brief marka iraado maxaa liisoo gudbiyey VLAN 10 20 30 100 1000 what is 50 60 hour 50 60 maxaa loogu soo gudbi waa inta because waa transparent haddii switchkaada transparent oo yahay VTB advertisement-ga isku dirayaan switcheska kama qayb qaadanayo okay asigana ma u dirayo xogta oo haayo switcheskaas wixii switcheskaas ay soo direen ma save gareysanayo laakiin uu forward gareynaa oo kaliya haye sewa sessionka waa dhamaatay 4 saac waaye xisad waa laga dhamaatay xisad waa go'day 4 saac ay ku dhacday aan 4 saac waxay ku dhacday anoo xamaasad yeeso okay halka mowduuc iyo halka mowduuc ayaaray ay waayahay problem laan adoo ilaahay insha Allah DTB ga iyo allowing-ka another session ka dhiganayna inta had inoo soo sameeyay yaa waxa idinku soo diyaarinaya insha Allah course-kii lagu qodir lahaa okay course-kooda soo diyaarinaya way su'aal hadaa qabtaan open ay tahay saano kala xamaasad markay qaado waxay ka codsanaa hadii aan boobsi inay celisaan insha Allah okay